munaasabadani way ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen waxgarad siyaasiyiin haween dhalinyaro xildhibaanada cusub ee maamulka Hirshabeelle State fanaaniin barbaarta gaashaaman iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ayaa waxa uu inuu musharax madaxweyne yahay kaga dhawaaqay Maxamed Cabdi Waare oo ah siyaasi caan ah oo ka soo jeeda Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ugu horeyn barbaarta gaashaaman iyo kooxaha fanka ayaa soo bandhigay heeso iyo shiribyo ay ku taageerayaan musharax Waare sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee munaasabada ka soo qayb galay ayaa iyana munaasabada ka hadlay wadana Maxamed Cabdi Waare waa ciyaaro noqon maayo waxa jira ururada jiro waxa jira hebel jadiid hebel waxa anagu waxaan dooranay nin oo Ilaahay ugu yahay oo dariiqa aan dooranay marka nimanka ururka wato dummi aan u sameeyay ونكا هيران شوالها ده أنا حرو أنا وحرو سمايس كرنو لكن الدين يجيو كين هم الدين سو بحواي ما يهمني نديه marka waan soo dhaweyneynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawaaw shacabkan waa shacabka aad u rabto inaad madaxweyne u noqoto Maxamed Cabdi Waare markii la sheegay maxaa soo baxay waxa soo baxayo Soomaali oo muwaadin aqoon kamida aqoon Soomaaliyeed musharaxyahana waa soo dhaweyneynaa waa bariyiin hadbana ninkii Allah alfa ku guuleystaa laga shaqeynaa ugu dambeyn ayaa munaasabada waxaa ka hadlay musharax madaxweyne ee maamulka loo dhisayo Hirshabeelle State balanqaadiyana sameeyay in hadii la doorto inuu wax badan ka qaban doono labadani gobol ayaan go'aansaday inaan idin kala qayb galo xafladan idiin soo gudbiyo musharaxnimadeeda waxaan halkan idin ka cadeynayaa inaan ahay musharax maamulka labada gobol loo dhisaayo oo loo dhisay oo u hirgalay sida la idin sheegay oo ay idin sheegeen duubab iyo nabadoonno iga horeeyay musharaxiin kale ayaa jira aniga haddaad i doorataan waxaan rabaa 3 arrimood inaan wax ka qabto koow in la soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta in nabadgelyadu shaqeyso in la safri karo in wixii dadka dhibaato dhaxyaal maxkamadda lagu kala bixi karo haweenku ragga waa ka badan yihiin horta koow hase ahaatee maamulkan noo dhismay haddaad aniga i doorataan waxaan ballan qaadayaa haweenku doorkoodii inay ka qaataan gobollada kale iyo maamulada kaleetana ay ka masayraan oo ayna soo fiiriyaan oo ay dhahaan see waxiin midooda taasa ka ballan qaadaa Ismaaciil Abdulle Sabriye Universal TV Jowhar.